magacaygu waa Yuusuf Xasan Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhalatay ku barbaartay dalkan Soomaaliya waxaan ku jiray dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waayadan dambe habka dawladda Soomaaliyeed ay wax u maamulayso oo ku tumashada sharciga marooqsiga xukunka digteed garaynta iyo inay abuurto kaliitaris cusub ee waqtigan maanta tiknoolajiyadii adduunyada dhammayd ay hormarayso oo wax walba isha lagu hayo raggii aad uga damqanayay oo arrintaas aad uga xanuunsanaya ayaan ku jiray mar walba waxaan ku taamaynay arrinka asaga inaan ka dhalinyaro ahaan iyo ka aqoon-yahan ahaan iyo inaan uga jawaabno raggeena halkan ku barbaaray oo aad mataqaana uga shaqaynayay inaan noqono dad native u ah dimuqraadiyadda adduunka maanta ka jirto adduunku kala tagsan yahay waxaan fursad u helnay oo aan rabnaa maanta halkan in uga faa'iidaysano oo aan aqbalno barnaamijyada nabadda ahay ay ku baaqeen midowga musharaxiinta Soomaaliyeed ee lagu qabanayay magaalada Muqdisho gaar ahaan daljirka Dahsoon aad baan u soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliya waxaan uga baaqaynaa inay maaragtay fursad siiso barnaamijka asaga ah difaacdo dadkaas ay difaacdo amnigooda ay sugto aqbasho waa dastuuri wax aan dastuuri ahayn anagu waxa weeye uma saciinayno uma sacabtumayno dimuqraadiyaddu ha noolaato dastuurka iyo sharciga ha sareeyaan deeq Soomaali waxaan aad u soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa oo diyaar u ah inaan ka qayb qaato barnaamijka ay ku dhawaaqeen midowga musharaxiinta waa alxamdulillah haddii siyaasiyiinta iyo hogaamiyaalka ay go'aansadeen barnaamijka inay nagala qayb qaataan awal waxaan aan kaligeen nala xabadeynayay nalagu dhibaateynayay maanta waxaan ku faraxsanahay in hogaamiyaashii ay garwaaqsadeen inay muhiim tahay maanta in la hadlo oo dareenka la muujiyo oo maxaa la yiraahdaa dawladnimada iyo dimuqraadiyadda la difaaco ayagana ay horkacayaan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mustaqbalkiin iyo kan caruurtiina difaacada oo soo baxa waa Garaad Xasan Guutaale Garaad Nasta waxaan soo dhaweynayaa baaqi midowga musharaxiinta ay ku baaqeen in dibadbax nabadeed isugu yimaado maalinta Jimcaha waxaan leeyahay muwaadin walba inuu ka soo qayb galo ugu baaqaya aniga lafsadaanteedana ka soo qayb galaya insha Allah taala waa Awil Maxamed Soodi waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo baaqi musharaxiinta ahay in maalinta Jimcaha barnaamij la isugu yimaado daljirka Dahsoon waana xaq dastuuri qof kasta oo muwaadin ah inuu xaq u leeyahay inuu barnaamijyo ama dibadbaxo oo aragtidiisa iyo afkaartiisa uu dhiibto waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb galno barnaamijkaas oo xaq dastuuri ah cid walba oo Soomaaliyeedna ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb galaan oo diyaar garoobaan maalinta Jimcaha barnaamijka ka dhici doona daljirka Dahsoon magacaygu waa Ismaan Faarax Ali waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho waxaan soo dhaweynayaa mudaharaadka ay ku baaqeen midowga musharaxiinta waan ka qayb galayaa waa soo dhaweynaynaa waa xaq dastuuriya waa xaquuq raadsasho waa waxa ugu sahlan ee qofka bulaadanka uu fikirkiisa ku cabiro marka sidaas darteed bulshada waxaan ugu baaqayaa in la soo baxo laga qayb galo waa barnaamij nabadeed insha Allah taala xuquuqdeena lagu dhacsanayaa dawladdu inaysan dib u arkin magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir caasimadda waddanka Soomaaliya Muqdisho waxaan soo dhaweynayaa baaqi midowga musharaxiinta ee ahaa maalinka Jimcaha ee bisha ku aadantahay 9 Febraayo ay ku dhawaaqeen naguna balamiyeen maxaan ku yiraahdaa ii sheeg daljirka Dahsoon baaqaas oo ahaa inaan maaragtay ka soo qayb galno barnaamij kaasoo shacabka Soomaaliyeed ku muujinayaan dareenkooda ku aadan maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo doorashooyinka si kale markii loo dhigan ay tahay wax maaragtay dastuuri ah qofka muwaadinka ah in uu muujiyo dareenkiisa la xiriira hadba xaaladda taagan anoo ka mid ah marka dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir waxaan ku baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ila midka ah ee ku nool gobolka Banaadir in ayaguna si la mid ah ay soo baxaan kana qayb qaataan maxaan ku yiraahdaa soo baxaas sidoo kale waxaan leeyahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne iyo dhammaan hay'adaha amniga maxaan ku yiraahdaa ka howlgala waddanka gaar ahaan caasimadda Muqdisho sida markii uu madaxweynaha uu rabo inuu bulshadiisa la hadlo looga ogolaado in dadku ka soo qayb galaan si la mid ah in annaguna nagu ogolaataan inaan maaragtay dareenkeena si nabadgelyo ku jirto xor iyo xalaalna aan u soo gudbisan magacaygu waa Saadiq Axmed Siyaad oo ka mid ah muwaadiniinta ku nool magaalada Muqdisho waxaan soo dhaweynaa baaqi midowga musharaxiinta oo ku aadanay isu soo baxa maalinta Jimcada ah oo nabadeed waxaana ugu baaqaa muwaadin kasta inuu ka soo qayb galo anigana waxaan diyaar u ah inaan ka soo qayb galo oo hormuud ka noqdo madawga soo baxaas nabadeed oo ay ku baaqeen midowga musharaxiinta